maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona halkan waxaa nooga bilaabanayo chapter 3 of grade 9 biology wuxuu ku saabsan yahay tissues structure and function wuxuu ku saabsan yahay si guud chapterkan wuxuu ka hadlayaa qaybta labaad ee body organization of living organisms levelka labaad waxaan soo aragnay inay tahay cells chapterkan wuxuu ku saabsan yahay levelka xigo body organization of living organisms which is a tissue chapterkan wuxuu ka hadli doonaa definitionka tissue guud ahaan tissueska inay yihiin group of cells isaga eg shaqada iyo structure-ka waxaa kaloo si guud chapterkan uu ka hadli doonaa qaybinta ama ablinta tissueska noocyadooda kala duwan ayaa looga hadli doonaa ahdaafta khaaska ah ee chapterkan waxaa ka mid ah in ardayga uu sharixi karo farqiyada u dhexeeya inuu sharixi karo conceptska cell differentiation ama cell specialization formation of tissues organs and organ systems inuu sharaxaad ka bixi karo ayaa la rabaa objectivekaas koowaad in la xaqiijiyo objectiveka labaad waxaa la rabaa in la xaqiijiyo the importance of cell differentiation and formation of tissues muhiimadda ay leedahay maxay tahay cell differentiation iyo tissues in la sameeyo noolaha maxay muhiim ugu tahay kadib tissue muxuu yahay by definition waxaa kadib la kala qaybin doonaa animal and plant tissues noocyada kala duwan ee animalska iyo plantiska noocyada ay noqonayaan then waxaan magacaabi doonaa various kinds of plant tissues list types of animal tissues objectiveka xiga animalska iyo tissueska noocyadooda ayaa laga rabaa ardayga inuu barto waxaa laga rabaa inuu qeexo qaab dhismeedka iyo shaqada epithelial tissues sidoo kale connective tissues muscular tissues waxaa laga rabaa ardayga inuu sawiradana waxaa nidhi componentiga buuggan qayb muhiim ay ka yihiin sawirada waa inay sameeyaan ardayda inay sawiraan label gareeyaan neuron iyo sida uu egyahay iyo waxa uu ka kooban yahay objectiveska intaas waaye waxaa marka ku xigo slide-kan uu ka hadlayaa sectionska ama mawduucyada waaweyn ee chapterkan uu ka hadlayo chapter 3 differentiation and specialization of cells waaye sectionka labaad wuxuu ka hadli doonaa plant tissues kan xigo animal tissues ayuu ku saabsan yahay and then levels of body organization from cell to organism afartan section oo waaweyn ayuu ku saabsan yahay chapterkan methodology-ga loo marayo ama qaababka la isticmaalayo si loo gaarsiiyo objectiveska chapterkan ardayga u gaarto waxaa la isticmaali karaa discussions ama demonstrations ama experiments mid walba iyo meesha ay ku habboon tahay maadaama activity centered uu yahay buuggan waxaa ku jiro chapterkan activities ilaa 5 gaarayo tan koowaad waxay ku saabsan tahay sida cellska differentiation ay u sameeyaan tan labaad waxay ku saabsan tahay in ardayga identification uu ku sameeyo locations of meristematic tissue in plants meelaha meristematic tissue ay ugu yaalaan geedka inuu aqoonsado uu garto activity-ga saddexaad
waxay ka hadlaysaa in plant tissues lagu fiiriyo microscope oo siday u ekaanayso meeshaas laga arko. Activity 4 waxaa la sameyn doonaa isbarbardhig ku saabsan parenchyma, collenchyma iyo sclerenchyma tissues. And activity 5 waa comparison u dhexeeyo between meristematic and permanent tissues of plants. Comparison loo sameyn doono ayaa meeshaas ayagana activity-gaas ay ku saabsan tahay. Shantan activity mid ka mid ah ayaan waxaan usoo qaadanaynaa as a sample for presentation in this class. Observing plant tissues under microscope ayaan sameyn doonaa. Ujeedada activity-gan waxay tahay oo plant tissues-ka iyo animal tissues-ka microscope-ka in lagu fiiriyo lagu fiiriyo plant animal tissues under microscope. waxyaabaha loo baahan yahay waxaa ka mid ah permanent slides for meristematic tissues, parenchyma, collenchyma iyo sclerenchyma diyaarsan slideskooda loo baahanayaa, animal tissues iyo microscope. intaasaa loo baahan yahay. Procedure-ka waxaa laga daawan karaa YouTube linkigan. Procedure-ka oo dhammaystiran ku yaallo. Kadib waxaa laga rabaa ardayga markuu video-ga soo daawado kadib inuu description ka bixiyo sawiro wixii uu ku soo arkay uuna ku sawiro observation notebook-giisa. Video-ga hadda aan sameynaynaa video horta wuxuu ku saabsanaa identifying parenchyma, wuxuu ku saabsanaa identifying parenchyma and sclerenchyma. waxyaabaha loo baahan marka waxaa ka mid ah parenchyma tissues oo permanent slide oo parenchyma tissue ku diyaarsan yahay, compound light microscope. procedure loo marayo marka waa kana. marka hore parenchyma tissue permanent slide kugu diyaarsan soo qaadaysaa, stage-kii microscope ka saaraysaa, kadibna mirror-ka ku aadinaysa si iftiin ku filan oo clear ka dhigay muuqaalka loo helo. kadib waxaa isticmaalaysaa coarse adjustment knob-ki. marka ugu horeysa waxaa ku aadinaysaa low magnifying power-ka, haddii kale objective lens-ka magnification-kiisa uu yaryahay. kadibna mid ka weyna u wareegaysaa. marka waxaa kuu muuqan doona muuqaalka hadda meesha ka muuqday. sidoo kale waxaa ku sameynaysaa sclerenchyma tissue. parenchyma cells aan ku laabanayna marka muuqaalkii microscope-ka uu muujiyo waa ka marka. microscope sidan wuxuu muujiyay. meesha marka waxaa kaaga muuqda cells-kii parenchyma cells-ka. number 1 waa iso diametric oo waxaa laga wada width-ga iyo length-ga oo isla egyihiin. cells-kan ballacoodii dherkoodu isla egyahay. sidoo kale space u dhaxay unugyada dhexdooda intercellular space waa weynaa jira. unugyada waa loosely attached. cells-ka marka aan ka hadlayna cytoplasm peripheral leeyihiin, nucleus asagana sidoo kale peripheral ah, cell wall-kii lagu yaqaan plant cells oo dhan ka muuqdo, vacuole ka muuqdo, large vacuole shaqooyinka marka parenchyma cells waxaa ka mid ah photosynthesis-ka, storage ka mid ah sida meesha baradhada ka muuqatay. sclerenchyma cells loo galay ayagan sidaan u muuqdaan. ayaga marka laba nooc ay noqon doonaan. waa ka laba nooc loo qaybin doono sclerenchyma cells, kuwa fibers la dhaha iyo kuwa scleroids. fibers marka waa ka labada dhinac waxay ka yihiin typhoid ama pointed ends ay leeyihiin. bits ay leeyihiin, dulduleelo yar ay leeyihiin. no protoplasm ma jiro. no nucleus, vacuole ma lahan. waxaa laga helaa cells-kan qaybaha geedka support-ka qaba sida stem-ka oo kale. shaqada marka waa for support. qaybtaas marka waxaan ku soo baxnay plant tissues. marka waxaa loo gali rabaa animal tissues. maxaa loo baahan yahay? waxyaabaha loo baahan yahay number 1 waxaa ka mid ah striated muscle fibers, muscle cells sida murqahan loo yaqaan skeletal muscles-ka. waxaa kaloo loo baahan nerve tissues, microscope-ka loo baahan yahay. procedure-ka waa ka marka sida wax loo sameeyo waa kan. soo qaad marka slide-kii uu ku diyaarsanaa muscle fibers-ka, microscope-ka stage-kiisa saar, mirror-kii light-ka uu reflection ku sameeyo ku aadi, kadibna ku aadi kadib sidaan wax u muuqan doona markii lagu fiiriyo microscope-ki. intaas marka waxaa laga soo baxay muscle cells-ki. marka nerve cells-ki
يا iyagana lagu fiirin rabaa sida oo kale maxaa la arkaa marka aye striated muscle fibers mise qaabkii u muuqda marka waa ka muuqaalkii waa ka microscope ka muuqanay marka hore waa cylindrical waa dhuluba oo kale mise tubo oo kale sarcolemmihi waa kan membrane-ka dusha ka saarna muscle cells-ka aye nucleus-ka ujeedada waa peripheral muscle cells-ka nucleus-ka iyagoo dhowr iyagoo badan waa multinucleated dhinacyada xigan buyooyinka waa kan qaab dhismeedkiisa marka waa kan muruqa waxa ku jira myofibrils waxa la dhahaa ay membrane-kiisa waa sarcolemmihi nucleus-ka waa ka soo peripheral wuxuu leeyahay muruqaha waxa leeyahay dark bands iyo light bands waana sababta lagu bixiyay striated-ka striated marka la waa xariijimo la masiriirtimo leh because waxa dark bands iyo light bands leeyahay intaas marka waxa looga soo baxay muscle fibers-ka nerve cells-ka ayaga say u muuqan waa kuwan iyaga sidana marka microscope marka lagu fiiriyo u muuqana ay cytone waxa la helay cytone cell body la mas neuron-ka wuxuu leeyahay mas nerve cell-ka waxa dhahdaa cytone iyo nucleus iyo dendron marka waa faracyada muuqdo farac ugu hore soo baxay waa dendron kuwa ka sii farcmay waa dendrites waa ka isagoo marka muuqaalkiisa si fiican loo sii muujiyay waa ka cell body waa cytone-ka dal soo sheegay nucleus-ka waa ka cell body-ga nucleus-ka cytoplasm-ka ku jira ay faracaas dheer axon loo yaqaan dhamaadkana waa axon terminal button loo yaqaan myelin sheath saaran oo axonka protection ah mas insulator ah intaas marka uu nagu eegay video-ga okay activity 3 macalinka waxa laga rabaa inuu soo bandhigo video-ga isla markaana materials-ka iyo procedure-ka iyo waxa dhan uu u sharaxo ardayda kadibna ardayda ay video-gaas daawadaan si fiican kadibna ay tijaabadii sameeyaan sida ay ku arkeen video-ga chapter 3 assessments waxa kamid ah oo la isticmaali karaa strategies-ka loo baahan yahay oral questions observations and questions at the end of the chapter intaana method kuwii horena sidoo kale loogu isticmaalayay chapter-kana intaas uu u baahan yahay chapter 3 chapter and questions waxa kamid ah oo la dhihi karaa waxa qasaba in la highlight gareeyo objectives-kana si toos ah u la xiriiro oo su'aalahan ka soo qaadan doona buugga textbook chapter questions waxay ku bilaabanayaan objective questions multiple choice mid walba ay la xiriirto objective gaar ah tan koobaad oo kale midlan waa group of cells that are similar in structure and function are known as organ system tissue cell hal rabaa in uu ka doorto tissue oo chapter-ka ciwaankiisa ah sidaas oo kale su'aalaha directiga ah waxa kamid ah inuu sheego ardayga functions of epithelial tissues nerve tissues meristematic tissues permanent tissues oo isugu jira plant iyo animal waxa kale oo kamid ah inuu sheego typeska of plant tissues typeska good animal tissues sidoo kale typeska good sidaas objectiveska lagu gaari karo murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmi